maayarka magaalada lagu haya Saleebaan Cabdilaahi Koodar ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya saxaafadda siiyay maanta. Waraysigan ayaa waxa uu koobsanayay arrimaha nabadgelyada, xaaladda biyaha, bixinta cashuuraha, horumarka iyo weliba waxqabadkii ugu dambeeyay ee ay ka hirgeliyeen degmadaasi lagu haya. maayarku waxa uu uga horreyntii daadufeeyay inay degmadaasi hoy u noqotay ka ganacsiga ugaadha sharci darrada ah iyo weliba in xeebaha degmada lagu haya laga soo dejiyo hub sharci darra. maya arrin jirta ma taas mana dhici karto. waxa weeye waa been abuur ay dadku sameeyaan. wax huba oo ka soo dagaa ma jirto. waxa wax horta lagu haya laga dhoofiyay ma jirto. waxa jirta dad maaragtay talxiis dawladdu ogolaasho u soo sameeyso annagu igmaahan cidii dawladdu ay soo turto waxaan ku sameeynaa control meesha doonaba laga soo tir cidii doonto ahaato cidii aan sharci haysan waajibkeega ka marnaa wax se laga dhoofiyay oo kalima ayna jiraan qoladaasna waanu aragnay waanu kulanay waxa weeye sharciga ay sitaan ayaa sharci maartay yar qaldan ahaa. waxa kale oo maayarku carabka ku dhiftay in ururinta dakhliga cashuuraha ee degmada lafdhabarta u ah uu yahay mid gaabisa duruufo badan awadooda. runtii waxa weeyaan taa noogu daran waa taa wax dhaqaale oo aan weli dhaqaajinimo ayna jirto. waxa noo sababay maadaama ay dadkaygii aanu dhaqaalaha ka qaadaynaba ay abaar hayso oo abaar xun ay maartay haatan ay ku habsatay waxa weeye ganacsato iyo dad ahaanba waxa lagu noolyahay dadkaas lagu noolaa waxa weeye oo ay baamishka ka socday wax cashuur oo hadda aan bilownay ma jirto. markale maayarku waxa uu tilmaamay in xaaladda nabadgelyada ee degmadaasi ay tahay mid aad u wanaagsan waxana uu sheegay intii uu xilka hayay muddo 3 bilood ah inuu halkaasi ka hirgeliyay waxyaabo horumarka la halmaalaa. maayarku waxa kale oo uu ka deyriyay in xaalada abaareed oo baan ay deegaankaasi ka jiraan amar kale waxana uu ummadda reer Soomaaliland guud ahaanba ka dalbaday in ducooyin roob doona meel walba looga soo akhriyo dadka deegaankaasi lagu haya iyo guud ahaan ummadda reer Soomaaliland ba si kasta xaaladu ha ahaatee maayar Saleebaan Cabdilaahi Koodar oo ah maayarkii ugu horreeyay ee xukuumadda kulmiye ay u soo magacawdo degmadaasi ayaa waxa uu yahay nin deegaankaasi muddo dheer ku dhaqnaa waxana ay dad badan dhaliilaan qaabkiisa maamul iyaga oo markaasi tilmaama in waayo aragnimada kale oo deegaanka u leeyahay ay ka badan tahay hab maamulkiisa. dhaliishan isaga oo ka jawaabaya ayaa waxa uu yidhi runtii waxa weeyaan kulay dadku waxba sheegaan qofkuna mas'uul markuu noqdo wax kasta ayay ka sheegaan taas waa waxaan ahay kulay waa la arki doonaa wax qabadkaygana waa la arki doonaa waa nin iyo nasiibkiina. Cabdulla Ali Yusuf, Home Cable TV, magaalada Boorama.